Muxuu dalka Qatar ka faa'iiday martigelinta koobka adduunka ee sanadkan 2022 maxayse reer galbeedku ka barteen koobka sanadkan sidee laga roonayaasha qowmuludiinta ahaa loo bahdilay arrimaha iyo kuwo kale oo muhiim ah ayaan ku arki doonaa muuqaalkeena maanta balse ugu horreyn fadlan muuqaalka like saar la wadaag asxaabtaada haddii aadan horey noola soconana soo raaco ka mid noqo asxaabteena dalka Qatar ayaa u diyaargarowga martigelinta koobka adduunka sida dhisidda garoomada kubadda cagta wadooyin hoteelo tareen dhulka hoostiisa mara iyo xitaa garoon diyaaradeed oo cusub ku kharash gareeya adduun lacageed oo dhan $220 bilyan waxaana koobka adduunka ee sanadkan loo tixgeliyaa dhacdadii ciyaareed ee ay aadamuhu ku bixiyeen lacagtii ugu badnayd abid hase yeeshee waxaa jira faa'iidooyin badan oo uu dalkan sanadkan koobka martigeliyey ka faa'iiday kuwaasoo aan ka xusi karno kow kufritaanka aayad qur'aan ah dalka Qatar ayaa ku guuleystay in koobka adduunka ee sanadkan uu noqdo midkii ugu horreeyay ee aayad qur'aan ah lagu furo waxaana aayadda akhriyay qaanim al-miftaax oo xaafidul qur'aan dalka Qatar u dhashay ah lambar 2 Qatar waxay fursad u heshay inay ka mid noqoto wadamada ciyaaraya ee koobka adduunka ee sanadkan maadaama mar walba dalka martigelinaya koobka uu fursad u helo inuu ka mid noqdo wadamada ciyaaraya nasiib darrase xulka dalkan ayaa xilli horeba iskaga hadhay tartanka lambar 3 dacwo faafinta dalka Qatar ayaa koobka adduunka ee sanadkan uga faa'iideystay faafinta diinta islaamka iyo inuu isbedelo fikirka khaldan ee warbaahinta reer galbeedku ka faafiyaan diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah wuxuuna dalkani u xilsaaray faafinta dacwada 2,000 oo qof oo leh 10 gaadhi iyo 10 tendo si dadka daawashada ciyaaraha u yimid ay u gaadhsiiyaan wacyi ku filan oo ku saabsan diinta islaamka waxaana jirta in dad badan oo markii hore daawashada ciyaaraha koobka adduunka u yimid Qatar ay qaateen diinta islaamka kadib markii ay aad ula dhaceen dhaqan wanaaga deeqsinimada iyo diin wanaaga dadka islaamka ah halka kuwa kale oo badan ay ka howlan yihiin sidii ay xogo dheeraad ah uga heli lahaayeen diinta islaamka ka hor inta aysan islaamin wuxuuse ujeedkana u muuqdaa mid xilli horeba hirgalay oo natiijo wanaagsan laga gaadhay lambar 4 laga roonayaashii oo la bahdilay Qatar ayaa koobkan uga faa'iideysatay tallaabo suurtagelin karta in saaxadda ciyaaraha laga suuliyo astaamaha muujinaya ee dhiirigelinaya qowmuluudnimada gaar ahaana marka ciyaaraha caalamiga ah lagu qabanayo wadamada aan aaminsanayn afkaartaas se ay reer galbeedku ugu soo dabagabadaan xuquuqul insaanka iyo wax la mid ah Qatar waxa ay dalalka kale ee caalamka uga dayan doonaan in dal walba uu leeyahay xeerar iyo qawaaniin isaga u gaar ah oo aan looga tanaasuli karin koob maalmo kooban socon doona inkastoo ay reer galbeedku aad uga falceliyeen go'aankan ay Qatar dalkeeda uga mamnuucday inay qowmuluudintu ismuujiyaan haddana dhag jalaq uma aysan siinin fiifana waxay Qatar ku taageertay go'aankan ay dhaqanka dadkeeda iyo diintooda islaamka ah ku ilaalinayso lambar 5 kobac dalxiiseed dalkan qaniga ah ee ku caanka ah diyaaradda Qatar Airways laakiin ay baaxadiisa dhuleed aad ku yartahay waxa uu ku yaalaa bar istiraatiijig ah hase ahaatee badiba dalxiisayaasha caalamku wax ogaal ah uma ay laha dalkan marka laga reebo inay in badan ku safreen diyaaradda Qatar Airways waqtiganse inta uu socdo koobka adduunka waxaa la qiyaasayaa in 1 milyan oo qof ay iman doonaan dalka Qatar taasoo dalkan ka caawin doonta in sanadaha dambe uu helo malaayiin qof oo si sanadlaha u soo booqda dadkaas oo dalkani waxyaabo badan uga faa'iidi doono hadday noqon lahayd inay dakhli badan soo geliyaan maalgashadaan ama ay wanaajiyaan xiriirka uu dalkani la leeyahay dalalka ay dadkaasi ka imanayaan ugu dambeyntii maxay reer galbeedku ka barteen dalka Qatar dalkan carbeed ee islaamka ah waxa uu reer galbeedka u dhigay cashir lama ilaawaan ah maadaama hadafkii ugu weynaa ee ay ka doonayeen uu ahaa inay dalkan ka dhex faafiyaan afkaarta guracan ee laga roonayaasha qowmuluudinta ah oo uu dalkanna iska gartay oo xitaa mamnuucay wax walba oo saacidi kara in astaamaha ay caanka ku yihiin dadkaasi ay ka soo muuqdaan fagaarayaasha ay ciyaaruhu ka dhacayaan iyo xitaa guud ahaan dalka Qatar waxayna reer galbeedku ku baraarugeen inkastoo dalalka carbeed ay galangal xoogan ku leeyihiin haddana inay leeyihiin diin iyo dhaqan islaam oo leh qawaaniin aan sinaba lagu burburin karin waxa kale oo ay ka barteen in afkaarta islaam nacaybka ahayd ee ay warbaahinta reer galbeedku faafin jireen sanadaha badan in waqti kooban wax looga bedeli karo waa haddii la helo ummad iyo dowlad midaysan oo muslimiin ah oo diintooda sida ay tahay u ilaashata kuna faanta muuqaalkana maanta intaa ayuu inoogu egyahay fadlan muuqaalka like saar lana wadaag asxaabtaada haddii aad hore noola soconna na soo raaco ka mid noqo asxaabteena